kusoo dhawaada. Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka la yaabka TV. qodobada warkeena aanu idinku hayno waxaa ka mid noqonaya Ilhaan Cumar oo ka soo dhex muuqatay shaashadaha iyada oo la tumanaysa nin cadaan ah arintaas iyo sidoo kale durbaba madaxweyne Trump oo bilaabay sidii uu meesha kaga saari lahaa wararkii ugu dambeeyay ee xagga Mareykankana waa daawan doontaan. haweeney qaraxyo isku soo xirtay waxa ay warar ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala koonfurta Soomaaliya. sirta ka dambaysa qaraxaas iyo cid soo abaabushayna halkan ayaad ka daawan doontaan. doorashada Jubbaland xiisad xoogan ayaa ka dhalatay musharaxiintuna waxa ay magacaawdeen guddi doorasho oo bilaabay hawlahooda. halka guddigii doorashooyinkuna hore u dhisnaa laba madaxweyne ayaa la filayaa in Kismaayo lagu kala doorto. wararkii ugu dambeeyayna waa daawan doontaan. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo sidoo kale ahlu sunna wal jamaa guud ahaanba waxa ay ku guuldareysteen heshiisyadii ay hore wada gaareen. ahlu sunnana ciidamo fara badan ayay ku daadisay magaalada Dhuusamareeb waxa ayna shaqooyinka ka joojisay saraakiil xagga dawladda ka socday. sida wararkaanu ku helayno faahfaahin dheeri ah ayaad ku daawan doontaan warkeena. ciidamada xoogga Soomaaliya waxa maalintii labaad ay meydadka ka aruurinayaan iyo sidoo kale dagaallo ay la galeen dhinacyo hubaysan gobolka Shabeellaha Hoose. tira meydada oo lagu arkay degmada Awdigle ayaad ku daawan doontaan warkeena. wararka dibadda ee warkeena aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid noqonaya jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo walaac xoogan ka muujisay xaaladda gobolka Kashmir iyo dawladda Venezuela oo ku gacan sayrtay wada hadal Khamiistii maanta ahayd ay la yeelan lahayd mucaaradka wadankeeda. kusoo dhawaada daawadayaal qodobada aad daawateen hordhacooda oo faahfaahsan aan ku bilowno. haweeneyda Soomaalida ah ee asalkeedu Soomaaliga yahay ee ka tirsan golaha Koongareeska ee dalka Mareykanka Ilhaan Cumar ayaa la arkay iyada oo la tumanaysa nin cadaan ah oo kamid ah gacan yarayaasheeda isla markaana in muddaaba ay wada socdeen. Masar team iyo sidoo kale Mrs Ilhaan ayaa la arkay ayaga oo maqaayad ay inta badan ka qaxweeyaan isla markaana ay ka casheeyaan lamaanayaasha xiriirkoodu uu qarsoodiga yahay oo ku taala magaalada Los Angeles ayaa waxa qabatay kaamirada warbaahinta Daily Mail. wargeyska ayaa daabacay in Ilhaan Cumar iyo sidoo kale ninkan uu xiriir dhow ka dhaxeeyay isla markaana in muddaaba ay wada socdeen. ninkan ayaa dhowr jeer waxa la arkay asagoo xaflado ay ka qayb gashay Ilhaan Cumar ku sugan sidoo kalena gabadheeda ayuu saaxiib leeyahay. arrintan ayaa wadada u xaaraysay madaxweyne Trump oo in muddaaba raadinayay halkii uu maray lahaa dagaalka Ilhaan Cumar iyo sidii meesha looga saari lahaa. durbaba baraha bulshada ee dalka Mareykanka waxa aad loogu falaqeeyay fadeexadan cusub ee soo baxday. Ilhaan ayaa muuqaal la soo duubay waxa uu muujinayaa ayada oo ninkan la socota isla markaana surwaal ku dhagan wadata. qaybaha hoose ayaana kaamirada looga qabtay. qaybaha hore warkan aad daawanaysaan daawadayaal la yaabka TV ayuuna warku idin kaga imaanayaa. koonfurta Soomaaliya haweeney isku soo xirtay walxaha qarxa ayaa waxa ay warar ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala magaalada Baardheere ee gobolka Gedo. wararka aanu helayna waxa ay tilmaamayaan in haweeneydan ay doonaysay inay bartilmaameysato saldhigga ciidanka ee magaalada Baardheere. haweeneydan oo isku soo xirtay walxaha qarxa ayaa ujeedkeedu wuxuu ahaa inay bartilmaameysato saldhigga ciidanka ee degmada Baardheere halkaasna ay ku leyso saraakiisha ciidamada ee ku shaqeynaya xafiisyada saldhigga. askari ka tirsan ciidamada ayaa istaajiyay haweeneyda balse waxa ay ku dhawaaqday in ay tahay haweeney dagaalyahana oo ismiidaamin rabta. waxa ay ku dhifatay magacmeed 3 askari oo ka tirsan ciidamada booliiska ayaana dhaawacyo kala duwan soo gaareen halka askartuna haweeneyda ay toogteen. waxaa la sheegay haweeneydan wararkeeda in laga soo qorsheeyay gobolka Baay gaar ahaan magaalada Baydhabo oo ay ka timi iyada oo wadatay xijaab madow ayaa la arkay oo taala afaafka hore ee saldhigga kadib markii rasaas badan ay haleeshay qaybaha jirkeeda. doorashada Jubbaland xiisad xoogan ayaa ka dhalatay musharaxiintii waxa ay ku dhawaaqeen guddi doorasho kaas oo qabanqaabinaya doorashada Jubbaland soo dooranaya madaxweyne cusub halka guddigii doorashada ee horay uu magacaabay madaxweyne Axmed Madoobe uu dhisan yahay. xiisada Jubbaland ayaa cirka isku shareertay laba madaxweyne ayaana la filayaa in Kismaayo ay yeelato. musharaxiintan ayaa waxa ay sheegeen in ay ka soo horjeedaan madaxweyne Axmed Madoobe oo hoggaanka u haya Duulaan Kenya ay ku hayso gudaha Soomaaliya.
maamulka ahlusunna wal jamaa iyo dowladda federaalkana xiisad xoogan ayaa soo kala dhex gashay heshiisyadii la wada galay waa ay burbureen ahlusunna ciidamo fara badan ayay ku daadisay magaalada Dhuusamareeb sidoo kalena waxa wararku tilmaamayaan in ay bartilmaameedsanayso saraakiisha dowladda federaalka ka amar qaadata ila ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa la yaabka TV u xaqiijiyay in ay la yaaban yihiin sida ay wax u socdaan halka wararkaas daawadayaal idin kaga imaanayaan waa la yaabka TV iminka wararka dibadda jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa walaac xoogan ayay ka muujisay gobolka Kashmir kadib markii Hindiya ay ku dhawaaqday guluf dagaal isla markaana bandow ay ku soo rogtay qaybo badan oo ka tirsan gobolkaas ayaa jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxa ay sheegtay in xayiraada dhinaca korontada iyo sidoo kale xariga siyaasiyiinta golaha siyaasadda ee gobolkaas ay tahay mid xaalad bini'aadantinimo iyo dhibaatooyin hor la horseedaysa dowladda Pakistan ayaa dhankeeda isku diyaarisay dagaal culus ugu dambeyntiina dowladda Venezuela ayaa ku gacan saartay wada hadal khamiistii maanta ahayd ay la yeelan lahayd mucaaradka wadankeeda wada hadallada ayaa la filayay inay u furmaan labada dhinac balse Nicolas Maduro iyo dowladdiisa ayaa ku gacan saaray kadib markay arkeen in wada hadallada ay ka dhex muuqdaan xubno ka tirsan xukuumadda Washington guud ahaan daawadayaal intaas waxa ku dhan warkii oo idin kaga imaanaya la yaabka TV hadda nabadgelyo